Soomaaliya waa dal aan lahayn wax soo saarka warshadaha waaweyn laakiin waxa uu leeyahay farsamo yaqaano kaaba kaalintaasi sida uu warbixintan inoogu qaadaa dhigayo wariyahayaga Mahad Bashiir Cismaan. Soomaaliya waa dal aan lahayn warshado wax soo saar leh laakiin waxa jira farsamo yaqaano kaaba kaalintii warshadahaasi oo inta badan soo saara agab ay bulshadu isticmaasho. Halkaani waa gudaha magaalada Cabudwa, waa goob ay ku shaqeeyaan xirfadlayaasha tumabirta kuwaas oo soo saara agab tayo leh hase yeeshee waa kuwo dadka ay ku dhex nool yihiin aysan dareensaneen faa'iidada ay bulshada u hayaan. xirfadan gacanteena ayaa waxay tahay waxa nolol maalmeedkan aan ku ciirsanaa iyo biilkan aan karaysanaa inkastoo aan u baran inaan qof bil aadan gacantiisa intaan barina aan dhaana yaa waxna siiyo inaan gacantanada wax kula soo baxno wixii aan shaqaysano u baan cuni karaa uma aan baran inaan cuno wax qof shisheeye gacantiisa ku jira inaan cuno waxaan gacantanada kula soo baxno oo dadweynahaas ka helo baan anagu yaan ku shaqaysana inaan ku cuno sida mindiyaha tumitaankooda iyo faasaska iyo wax noocaas iyo tuuriyahaas waxa qalabka soo saaray marka maxaa kamid ah oo deegaanka soo saaray qalabkan deegaanka soo saaray waa faasaska iyo madanayaasha iyo waxyaalahaas wax noocaas weeyaan qalabkaas aad arkaysaan qalabkaas weeyaan waxaan u saaray deegaanka mindiyaha madanaha faasaska tuuriyaha waxaas bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa la yiraahdaa Umar Saahid Alaad farsamadan aan macnaheedu bulshada u hayno waxa weeye waa farsamada gacanta waxaan soo saarnaa qalabka macnaheedu bulshada u baahan tahay sida maaragtay waxyaalaha faasaska xooluhu ku qotaan ma jirto wax dhiirigelin ah oo ay u sameeyaan ganacsatada iyo dadka deegaanka oo ay ku dhex nool yihiin taasna waxay keentay in xirfadoodu ay noqoto mid si gabaabsiya dadku waa naga gataan laakiin cid nagu dhiirigelisa ma oo war shaqeeyo waa shaqaysanaysan wax dhahan jirin ma jiraan laakiin waa nagu dhiirigeliyo aan ma garanaysaa annaga isku dhiirigelin inaan shaqaysano oo aan qof bil aadan barin annagu waxaan waxaan soo saarno oo qalabkaas weeye waa faaska weeye waxyaalaha dibadda laga keeno waxa weeyaan kaanaga maartay ka habaysan oo ka farsamo badan oo ka caalamisan dadku intaas oo macnaheedu buuhaysanaya wax ku goosanaya waxa weeyaan cid nagu dhiirigelinaysa iyo cid maartay wax nagu siinaysa iyo cid maartay wax soo saarkanaga dhiirigelinaysa ma jiro hal abuuradan ayaa waxa ay qabaan in hadii la maalgeliyo xirfadoodan gacanta ay la tartami karaan wadamada wax soo saarka hormaray leh dawladdu waxaan u baaqayaa in qalab aan ku shaqaysano oo ma garanaysaa aan xirfadana kula soo baxno oo caalamka la tartano inay ma garanaysaa nala soo gaarto oo noo keento ayaan u baahanahay sida qalabka aan ii sheegeen qalab waxa jira matooro oo ma garanaysaa lagu shaqeeyo biraha lagu jaro oo nooc kasta leh oo ma garanaysaa birta laga shubayo nooc kasta bir oo safarna loogu keenayo waa ciideena laga shubaya ma aha wax deegaan kale laga keenayo waa ciideena wax laga shubayo birtoo dhan ciideena ku jirtaa marka waxaan rabnaa qalabkii ciidda lagu shubayay oo ma garanaysaa alaabta soo shubaysay haddaan heli lahayn oo aan haysano dawladda kale iyo meelaha shaqeeyana wax u doonaan dhulkanaga wax naga dhan ka helayn oo ma garanaysaa deegaankana ka helayn dawladdanaduna waxay noqon lahayd dawlad awood leh oo ma garanaysaa mushaarkeedu uu si fiican u baxo oo ma garanaysaa ay xoog yeelato dhaqaale xoog leh ay gali lahayd oo heli lahayd waxaan ka codsanaynaa marka ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda iyo cid walba oo qosayso arrimahan in horumarka sida dalku horumar u gaaro in la ku dhiirigeliyo wax soo saarkanaga si kastoo u yihiin farsamo yaqaano xirfadooda ay aad u sareyso haddana waxay magaalada ka degan yihiin sida idin muuqata goobta ugu liidata oo ah goob ka kooban cooshado iyo waliba jiingado yaryar taas oo muujinaysa aragtida ay bulshada ku haysato farsamo yaqaanadani iyo waliba sida ay bulshadu aysan u danayneenin waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xilif telefishinka caalamiga ah CW magaalada Cabudwa ee gobolka Galgaduud.